رئيس وزراء عصب الصومالية حمزة عبدي برre ayaa maanta sameeyay xil magacaabisiisa koowaad xafiiskiisa tan iyo markii uu xilka la wareegay dabayaaqadii bishii la soo dhaafay June. Ra'iisul Wasaare Xamse wuxuu magacaabay ilaa 8 qof isugu jira maamulayaal ila taliyayaal. Shaqooyinka dadka loo magacaabay ee ka imaanaya ama xisaab ahaan ay ka soo jeedaan ayaa xiiso u yeeshay magacaabisa uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Xamse. dadka la magacaabay ayaa kala ah Subeer waxaa loo magacaabay xoghayaha joogtada ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha wuxuu hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya. waa nin beesha shanaad ka soo jeeda muddo aad u dheer ma dhicin in qof beesha shanaad ka soo jeeda loo magacaabay xilka ugu sareeya ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha taas oo Xamse durba siinaysa sawir fiican. qofka labaad ee isna maanta la magacaabay waa suxufiga muddada fog jiray Farxaan Maxamed Jimcaale kaas oo loo magacaabay hay'adda xukuumadda Soomaaliya ahna agaasimaha warfaafinta ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Farxaan Maxamed Jimcaale oo hadda ka tirsan idaacadda BBC-da ayaa loo arkaa mid si weyn ugu habboon booska loo magacaabay. qofka saddexaad ee Ra'iisul Wasaaruhu magacaabay waa Cali Cabdi Awaare oo reer Puntland ah kaas oo loo magacaabay la taliyaha Ra'iisul Wasaaraha ee arrimaha dib u heshiisiinta. qofka afaraad waa Haashim Maxamed Cali agaasimaha maaliyadda ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. qofka shanaad ee Ra'iisul Wasaaruhu magacaabay waa Cabdillaahi Shariif wuxuu ka soo jeedaa Gado kaas oo laga dhigay madaxa maamuuska Ra'iisul Wasaaraha. muddo wuxuu ka tirsanaa xafiiska Ra'iisul Wasaaraha xilligii Xasan Cali Khayre uu talinayay. wuxuu ka tirsanaa waaxda maamuuska ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. qofka lixaad waa Dr. Hodan Cismaan oo reer Laascaanood ah kaas oo laga dhigay la taliyaha Ra'iisul Wasaaraha ee xiriirka caalamiga ah. Dr. Hodan ayaa horey uga soo shaqeysay nidaamkii madaxweyne Farmaajo taasoo Xamse ka dhigaysa in xulashadiisu aanay ku jaagoonay inuu diido dadkii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Farmaajo. qofka toddobaad ee Ra'iisul Wasaaruhu Xamse uu maanta magacaabay waa Dr. Axmed Nuur Maxamed Cabdi oo xilligii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre madax ka ah xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Axmed Nuur waxaa loo magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha siyaasadda iyo isku-duwaha barnaamijyada ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. qofka sideedaad ee la magacaabay waa Kamaal Daahir Guutaale oo hore u soo noqday agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya haddana ka mid ahaa taliyaashii hore ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaas oo isna hadda loo magacaabay taliyaha arrimaha ammaanka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. 8 xubnood maanta la magacaabay mid ka mid ah ayaa Ra'iisul Wasaaraha la wadaaga xisaabta afmadow laakiin xubintaas oo ah Dr. Axmed Nuur wuxuu hore u soo noqday xoghayaha joogtada ah ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxa hay'adda NRC ee ilaayo heer gobol taasoo ka dhigan in lagu xushay aqoontiisa. 8 qofood maanta la magacaabay 2 waa reer Puntland 3 waa reer Jubbaland 2 waa Hirshabeelle 1 waa Galmudug. sidoo Ra'iisul Wasaare Xamse u qaabeeyay magacaabisiisa koowaad waxay muujinaysaa dheelatirnaan dhaqan siyaasadeed oo la aqbali karo iyo xulasho xirfad ku salaysan. maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ku dhawaaqo golihiisa cusub ee wasiirada. maxay kula tahay adiga daawada?